markii aad wadamada aad bedesho faa'iidadan ayaad heli kartaa oo aniga sida igu jeedan oo muuqaalkan aad ugu jeedan aniga markii koowaad waxa la igu lahaa markaan Soomaali ku sameystay kun qof markii aad keento aad la bixi kartaa lacagdan laakiin markii aniga aan keenay oo 66 qof $100 ayaan la baxay lacagda Sweetcoin ka igu jartay waa 330 Sweetcoin baa igu jartay $100 waayo sabarkan kale dhinacan aad u jeedan qofkan wuxuu joogaa Belgium ka joogaa $100 isaguna waxa lagu jartay 900 Sweetcoin marka saad u jeedo isagoo wadamadii Belgium uu joogo anaga ku sameystay wadamadan American iyo Ingiriis ku sameystay 330 Sweetcoin baa lagu jartay isaguna waxa lagu jartay 900 Sweetcoin ah marka qiimaha ay ka leeyihiin waad arki kartaa soo dhawaada dhamaantiina saaxiibayaal marka muuqaalkan hadii aad ka heshay si xishmad ah waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan in aad hadaa tahay qof nagu cusub subscribe saarto hadii tahay saaxiibada hore noola joogtay like noo saarto noo share gareyso si saaxiibo badan u gaaro channelkeena marka muuqaalkan waxaan ku hadli doonaa qiimaha ay kala leeyihiin wadamada iyo qaabka adiga lacag u la bixi karto oo adiga Soomaaliya joogo iyo lambarka aad lacagdaas markii aad la bixiso lambar ba lagu xijeen doonaa lambarkaasna sida aad ku heli lahayd muuqaalkan ku soo diyaarin doonaa marka muuqaalkan intaas waan ku hadli doonaa sida u jeedan saaxiibayaal horta Sweetcoin ka waxaan kula bixi lacagdan waxaan sugi doonaa 3 maalmood 3 maalin ku baad lacagday way soo dhigi doontaa $100 aan kula bixi Sweetcoin marka qaabkan ula bixay sida u jeedan $100 markii aniga meesha Soomaali ahayd muuqaal hore aan soo gilay sida loo bedelo wadanka ah si aan $100 u la baxo waxa loo baahnaa kun qof in ligiga isku diiwaan geliso laakiin markii aan change country sameeyay oo wadankii aan bedelay wadankii Ingiriiska ama United States aan ku bedelay oo Mareykan ah 66 qof $100 ayaa la ifray marka aniga linkay markaas waxa isku diiwaan geliyay 66 qof waxa la ifasaxay qaybta oo lacag la bixida $100 baa la soo fasay $30 marka koowaad la soo fasay ma la bixin waxa la soo fasaxay ayadana $100 ayadana la soo fasay marka $100 66 qof ay liigu soo fasay marka hadii aad Soomaali joogdo kun qof baa loo baahan yahay qiimaha ay leeyihiin waa meeshaas markii aan la baxay coin-ka aan la igu jartayna waa 330 Sweetcoin ayaa la igu jartay marka hadii aad Soomaali joogdan kumanaan Sweetcoin ba laga jarnaya marka aan la baxayo waxa la ii weydiiyay lambar Mareykan ah markii aad la bixis khasab waa lambar Mareykan lagu weydiin doono laakiin lambarkaas waxa ku fiican yahay waxa kood ah id ku soo diraysto ma jiro mise waxa xaqiijina in lambarka aad leedahay iyo lambarka in aad lahayn id ku xaqiijinayso ma jirto magacaada aad gelinaysaa saad u jeedaan meesha marka lambar oo waxa jira application ah free laga helaayo ba jiraan muuqaalkan ku soo diyaarin doona sida ku heli lahaydeen marka saaxiibadeedii qaaliga waxaan idin kula talin lahaa in aad wadanka Soomaali aad isku bedeshaan marka wadanka Soomaali aad isku bedeshaan sida aan idin muuqaalkan aan hore u soo diyaaray Sweetcoin ka ku bedelitaan oo saad ku arki kartaan markaas wax ku fududaanaysa in aad lacagdaada la baxdo oo qiimo yar Sweetcoin adigu ku bedelinayo lacag $1 ah marka hadii aad Soomaali xana oo la baxdo Sweetcoin oo aad u tir badan ayaa loo baahan yahay in aad bixiso marka hadii aad wadamada kale ku sameyston Sweetcoin yar ba laga bixinaya marka ilaa hadda waxa la qiimeyn karin coinska Sweetcoin ilaa hadda id qiimeyn karto ma jirto waayo qofkan saad u jeedaan $100 900 Sweetcoin ba kula baxay marka 900 Sweetcoin ba lagu jartay anigana $100 330 Sweetcoin ba laga jartay marka fiiri farqiga u dhaxeeyo waa wadamada waay qiimaheeda ilaa hadda id qiimeyn karto ma jirto lagu yaabay wadamo midka aan hadda shay ku fiican yahay in uu jiro ba lagu yaabaa marka waxaan u maleynayaa muuqaalkan in aad wax badan ku fahanteen marka sida aad lacagda u la baxay hadii lacag soo gaartana waa idin la wadaagi doonaa qaabka lacagda looga baxo dabcan ma duubin oo halay toole abada la baxay laakiin ma duubin sida lacag looga baxo laakiin dad badan ba ku soo hadleen oo qaabka lacagda loo bixiyo YouTuber badan bal ku arkayay marka wax weyn ma aha magaca koowaad ba gille magaca labaad iyo waxyaabo saas ah user iyo Gmail iyo u dambeyn waxaad gelinaysaa PayPal-ka aad kula bixi doonto email-kiisa gelinaysaa marka dhamaantaas waa faahfaahinahay marka idii u baahan muuqaal kale aan soo diyaarin doonaa marka hadii aad muuqaalkan ka heshay like noo saar noo share garay si saaxiibo badan u gaaro channelkeena isku soo laabad wanaagsan asxaabta channelka halbeeg tahay